waxaan gabi ahaanba isbedel ku sameynay qaabka cusub hadda u trade gareyn doona insha Allah bisha March iyo wixii ka dambeeya oo next week insha Allah inoo bilaaban doonto live-keena maantana gabi ahaanba intaasan kaga hadlaynay isbedelka koobaad aan sameynay saddex qodob ma ku soo koobaya marka koobaad sida caadigeed inta aad ka wada warhayseen isla markaana aan iyadoo aan sii baraarujinayna waxaad in lacagta gold oo kaliya aan ku trade gareyno oo anaga aan lacag kale ku trade gareynin soo kaleeto inaanu maalinkii qaadano hal ilaa ugu badnaan 3 trade iyadoo markasta ku xiran trade-ka koobaad waxaan ka qaadanaa hadii trade-ka koobaad aan TB helno gabi ahaanba suuqa kuma soo laabana si hadii aan trade-ka break even ama stop loss aan helno waxaan isku daynaa in marka aan recovery sameyno so waxa way maalinka aan dhaano over trading baa sameynay limit-ka aan dhaafi karin waa 3 trade laakiin sida normalka hal ilaa 2 trade soo kale trade stop loss-kiisa oo 30 pips ka badan yahay gabi ahaanba ma galayno hada trade-kan sida arkaysa 29 pips kaliya stop loss-kiisa target-kan raadinayna wuxuu noqon doonaa insha Allah only 50 pips trade-kaas waxaan ka raadinaynaa waa 1.5 ilaa 1.7 RR si markaa uu rate-keena uu aad ugu siyaado trade-yadana waxaan u manage gareynaynaa sideena caadiga trade-ka haduu 25 pips oo nasiyo oo TB1 hada sida trade-kan oo kale sida arkaysid inaan half profit-keena booking gareysano ama ugu yaraan qayb kamid ah profit-keena trade-kan aan break even dhigano oo gabi ahaanba aan free risk iska dhigno kadibna trade-kan haysano intaas waxay isku yahay qodobka koobaad qodobka labaad wuxuu yahay hadda bishii February ee dhamaadka labada asbuuc ugu dambeeyay waxaan ku trade gareynaa gold algorithm inta badan waa setup iska confuse aad buu win rate-kiisu u fiican yahay waa setup-ka kaliya oo 9 ilaa 7 trade inta qaadato 2 ama 3 trade kaliya loss qaadanaysa waa dareemi karaysa laakiin dibka uu leeyahay waxay tahay markasta trade-yada ay stop loss-ka qaadanaysa stop loss-kooda waa weyn oo risk to ratio markasta stop loss-ka weyn waxa laga yaabaa trade ina 15 pips ka raadinaysa laakiin stop loss-ka uu yahay 30 ilaa 40 pips wax macquul ah ma waxa dhici karto laba trade ina win heshid hal trade ah khasaartiin wixii oo dhan kala laabto oo minus ku galay sidaa daraaddeed insha Allah waxaan dib ugu laaban doonaa setup-keena ISI oo maalinka hal ilaa 2 trade kaliya aan qaadanayno target-koodana uu fiican yahay win rate-koodana uu fiican yahay insha Allah qodobka saddexaad ugu dambeeya wuxuu yahay in ay isla xisaabtan sameyno maalinka ugu dambeeya Friday-ga asbuuca 4 maalmood baa trade gareynaynaa from Monday ilaa Thursday maalinka Friday-gana inay noqoto maalin isla xisaabtana oo arday kasta uu awood u yeelanayo inuu si toos ah ila soo xiriiro kadibna uu soo gudbiyo xogta asbuucaas wixii uu trading-keena uu ka faa'iiday akoonka uu haystay riskiga uu qaadanay inta trade uu la qaatay muxuu khasaaray muxuu faa'iiday akoonkiisu hadda halkee uu jooga ma withdrawal buu sameynaya profit buu jooga ma drawdown buu ku jira maxaa ardayga ka khaldan oo talo markaas aan siin karaya in waxa way isla xisaabtankan insha Allah aan sameyno iyadoo ardayga ka bilaabanayso oo la khasbaya aysan jirin ardayga ikhtiyaar u leh hadii uu doonayo inuu horumar ka sameeyo live trading-keega isla markaana asbuuc kasta iyo bil kastaba uu halkaan lacag joogto ka sameeyo insha Allah ilaahay sidaas ka rajaynaa inuu nagu garab galo next month goal baa inoo balan insha Allah